السلام عليكم كنت وعنا ونagsan meel kasta dunida joogtaan kusoo dhawaada oo markay barnaamijyadeena caafimaadka mawduucanna waxaan ka hadli doonaa waxtarka ama sidoo kale faa'iidada caafimaad ee toonta u leedahay dad kale waxaa loo yaqaano xanuunada wadnaha iyo sidoo kale dhiigkarka iyo sidoo kale saameynta gaarka iyo faa'iidooyinka laga helo toonta balse intaan mawduucan u gudagelin waxaan ka codsanayaa akoonka noo saarto follow sidoo kale qaybta sare ee linkiga profilka saarana inaad noo saarto youtube-ka subscribe aad u mahadsan tahay anu soo laabana mawduuceenne marka laga hadlayo toontu waxay leedahay faa'iidooyin fara badan sida daraasado in dhawaale lagu sameynaya hoosta ka xariiqayaan gaarka la xusan wax kamid ah in hoos u dhigto cadaadiska dhiigga ee sareeya waxa loo yaqaano dhiigkarka waxay kale oo ka hortagtaa xanuunada ku dhaca wadnaha marka laga hadlayo toonta waxaa ku jira isku dhiska loo yaqaano sulfur iyo sidoo kale maadada loo yaqaano allicin labaduba waxay ka qayb qaataan sidoo kale caafimaadka iyo sidoo kale xoojinta lafaha waxay kaloo u dhaqmaan sida hanaanka bakteeriyada wadooyinka lagu daweeyo loo yaqaano antibacterial taasoo ka dhigan inay ka hortagaan xanuunada ay keeni karto ama dhibaatooyinka bakteeriyada ugu dambeyntii waxaa lasoo jeedinayaa haddii qofku leeyahay xaaladaha noocana inuu isticmaalo sidoo kale inuu cuno toonta taasoo ka dhigan inuu ka helayo faa'iidooyinka aynu sheegnaa sidoo kale aynu xusin kula dambe tan iyo ku mahadsantahay daawashadiina nabadgelyo.